cabdifataax waxaan hadda taagnahay xafiiska ra-iisul wasaaraha hortiisa marka dadkii odayaasha ahaa iyo cuqaashii culimadii mutacalimiintii haweenkii dadkii lasugu yeedho oo dhan baa maaragtay ii wada muuqda marka shirkan saakaa la galay 3 saac ama 9 subaxnimo dadkay u taqaano waxaad moodaysa shirku in uu dulucdiisu ay tahay in la isbooqdo oo la iscafiyo marka waxaa ka hadlay ra-iisul wasaarihii waddankan Ethiopia madaxweyne cusbaa iyo waliba gudoomiyaha xisbiga ayaa ka hadlay sidoo kalena waxaa ka hadlay dad aan ku qiyaasay ugu yaraan 35 ruux ayaa ka hadlay iyagoo maaragtay dhibaatooyinkii deegaanka soo maray iyagoo siyaabo kala duwan u fiirinaya ayay ka hadleen mar haddii halka lagu soo bandhigay dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray haatanna lagu baaqay in la iscafiyo markii laga soo tago hadalladaas muxuu ahaa nuxurka shirkan loogu yeeray iyo waxa ka soo baxayba cabdifatax horta dadweynuhu taariikh dambey dib u raaceen oo dhibaatooyinkii deegaanka ka jiray ah oo dhinac walba saameynao dhinac diineed iyo maaragtay dhinac dhaqaale iyo dhinac jildil iyo dhinac xuquuqul insaanba leh dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa geystay bay dadku isku raaceen sinamadii maaragtay tigreeg ahaabaa geystay marka hadda kadib mar rabna bay ra-iisul wasaaraha hortiisa ka dhaheen dhagaxna lagu soo tuuray mar rabnay dhaheen dawladdan hadda cusubna mar rabnay dhaheen waxaad u yeedhiseen inay nagu maamusho mar rabna iskana noo madax baneeya bay maaragtay carabka aad dadku ugu qaleen marka ra-iisul wasaaruhu arrintaas isagoo ka falcelinaya ayuu in badan kala hadlay inaa la iscafiyo iyo in waxaasoo dambe ayna dhacaynin dowlad deegaanka soomaaliduna uu waddankan Ethiopia u yahay deegaan muhiim ah oo dad ahaan iyo maaragtay dhaqaale ahaan iyo juqraafi ahaan baa waddankaasi waddan muhiim u yahay dadkiisana dad wanaagsan oo la dhayeelsan kara inaan ahayn ayuu halkii ka cadeeyey marka cabdifatax 15 daqiiqo ayuu ra-iisul wasaaruhu hadlayay 10 daqiiqo wuxuu ka hadlay ceelka shidaalka oo keliya marka cabdifatax wuxuu yidhi dahabka Oromia ama Gambeella ama Birshaangul laga soo saaro Ethiopia oo dhan buu maaragtay u yaalaa nacsigiisu shidaalkana Ethiopia oo dhan ayuu yaalaa nacsigiisu laakiin waddanka Mareykanka maraan joogo oon 5% idhi arrintu saas aanu dhigamaynahayn ayuu yidhi gaarka shidaalka dadka ka faa'iidaysanaya 5 aanu talagalay iyo dadka barakacay xoololeyda ahaa marka wax walbana dastuurku idinku qoran yahay buuri madaxweynaha dowladda deegaanka cusbaa ayaa isaguna qaatay hadalkii wuxuuna sheegay inuu qoraalka dastuurku ku qoran xagga shidaalka oo rajaalu sheegay una aad u akhriin laakiin arrinta lafteeda wixii ku qoranba waa iskaga dabatay karaa buuri isagoo u hadlaya in si nacfi badan deegaanka u helaan aanan la odhan karin dastuurka waxaas ku qoran